madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta garan iyo shir gudoomiye shirka khamiislaha golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo weeldhadaayaan toddobaadkan shirka maylan ku hadalay qodobo iyo kumid hayaan amniga dhaqaalo siyaasada iyo arrimo bulshada wasiirka wasaaradda amniga guud dowlad goboleedka koonfur galbeed isaaq ali suuq iyo ku dhegeysadii warbixinta ammaanka guud ee koonfur galbeed maynuusa sheegay intii ammaanka gobolada koonfur galbeed hatan ku jarna wal dhibaato ee walow iyo jaraan weeraro qorshaysan oo iyo fuliyayaan ciidanka xooga dalka iyo handaraawishta koonfur galbeed kaasoo la ka xaqiijiyo ammaanka guud ee koonfur galbeed wasiirka wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdiraxmaan cusmaan malaag koolkooliyo iyo sidaas oo kaleed mayl ku dhegeysaday warbixinka eedan heerka walbarasho ee gobolada baybakol iyo shabeellada hoose maynuusa xusay intii horumar la taabado kor ku jara dhinaga walbarashada usugoona tusaalan ka dhigay jaamacadaha kabadadahay baydhabo xarun ku meeldeeran ee dowlad goboleedka koonfur galbeed intii ay dadaalada walbarasho iyo wada wasaaradda shirkantii uu socday oo shir gudoomiyay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis lafta garan iyo golo wasiirada uu ku mahadnaqay shaqada baaxad leh iyo hay'an shacabka maynuusa sheegay intii lambaahayay intii wala ku qabada arrimo barakacayaalka oo hatii iyo wajahin roobabka deertay ee taas oo safari wasaaradda caafimaadka iyo gargaarka intii kaalantiyo iyo ku qaadan sidii barakacayaalka oo hela lahaayeen adeeg dowladeed oo dhameystiran ugaas xasan cabdi maxamed wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo warbaahinta koonfur galbeed ku warbi walyaabo shirkalon ku hadalay waxaa inoo qabsoomay shirkii khamiislaha ahaa oo toddobaadkiiba mar ay golaha wasiirada koonfur galbeed Soomaaliya ay isugu imaanayeen waxaana maanta shir gudoominayay shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waxyaabaha maanta shirkan golaha wasiirada koonfur galbeed Soomaaliya sida gaarka loo xiiseynayo golaha wasiirada iyo madaxweynaha uga wada hadleen waxa kamid ah sida cadadaba inoo ahayd arrimaha amniga siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada intaba wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane isaaq ali subag baa warbixin dheer oo dhinacyo badan taabanayso amniga iyo horumarada laga gaaray gobolada koonfur galbeed Soomaaliya halkaas ka soo jeediyay isagoo wasiirka uu sheegay in xaaladda guud ee gobolada koonfur galbeed Soomaaliya aad u wanaagsan tahay ciidamada amniga kala duwan ee ku sugan gobolada koonfur galbeed haday tahay AMISOM kuwa qaranka Soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed Soomaaliya intuba ay howlgallo kala duwan oo ay shabaabka ku beegsanayaan ay ka wadaan gobolada koonfur galbeed Soomaaliya sidoo kale wasaaradaha dabcan maanta warbixinta laga dhageystay waxa kamid ah wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyadoo halkaasna wasiirka wasaaraddaas uu warbixin dheer ka soo jeediyay xaaladaha guud ahaanba waxbarashada gobolada koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaanna magaalada Baydhabo oo ay ku yaalaan jaamacadaha ugu waaweyn iyo iskuulada ugu waaweyn ee gobolada koonfur galbeed Soomaaliya isagoona ammaan iyo bogaadin badan u jeediyay wasiirku sida ay u shaqeeyaan macallimiinta dugsiyada sare dhexe iyo hoosaba ee jooga magaalada Baydhabo iyo koonfur galbeed Soomaaliya iyo duruufaha ay ku shaqeeyaan oo aad u bogaadiyay soo dhabar adeegooda sida ay waxbarashada ku wadaan sidoo kale golaha wasiirada koonfur galbeed Soomaaliya waxyaabaha isla soo qaadeen waxa kamid ah sida loo ogyahay ba waxa bilowday roobkii dayrta ah oo si wanaagsan guud ahaanba ooga da'ayo gobolada Soomaaliya oo dhanba gaar ahaan gobolada koonfur galbeed Soomaaliya in dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya dabcan markii ilaahay nimcooyinka noocan uu keeno waxa jiri karaya in roobabkaasu ay dhibaatooyin u geystaan dadka nugeylka ama masaakiinta ah ama ka kala yimid gobolada ama degmooyinka koonfur galbeed Soomaaliya magaalooyinka waaweyn soo maciinbiday ama sida kumeel gaarka deganaanshaha u degan oo duruufihii kala duwan oo amni iyo abaaraba ay ka soo qaxiyeen deegaanadii ay ku noolaayeen in ay ku jiri karaan dad aad u liito masaakiin ah in dadkaas masaakiinta ahaana guud ahaanba dawladdu ay ka warqabto kormeer ku soo samayso roobabka da'ayo xajmiga ay leeyihiin iyo in guud ahaanba dadkaas kaalmo la gaarsiiyo hadii ay jiraan duruufo ay roobabkaas u keeneen ayadoo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha kale arrimaha bulshada intana lagu faray inay si dhow oo la socdaan roobabka badan oo da'ayo waxyaabaha ay keeni karaan oo ay ka mid yihiin in kaneecadu ay kici karto dadka caafimaadkoodana sida ugu dhaqsiyaha badan looga warqabo xaaladooda hadii ay wuxuun iska jiraan si jawaab degdeg ah looga siiyo dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya ee ilaahay wax siiyana xilli roobaadkan ay si hoose u eegaan dadkaas masaakiinta oo ugu yaraan waxa ay u baahan yihiin ay kamid ahaan karto bacaha laga galo roobabka in loo kaalmeeyo si hoosana loo eego
dowladuna ay kormeer ku samayn doonto meelaha ay ku nool yihiin dadkaas tabarta daran masaakiinta roobabka dhibaatooyinka ay u geysanayaan iyadoo dabcan hay'adaha kala duwan oo ku sugan gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyana sida caadadaba u ahayd ay caawin jireen xilliga dhibaatooyinka noocana ay dhacayaan sidoo kale golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay isla soo qaadeen guud ahaan horumarka dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ay sameynayso muddadii 9 bilood ee madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen madaxweynaha ka ahaa sida deganaanshaha siyaasadeed iyo xasiloonida siyaasadeed ee uga jirto gobolada Koonfur Galbeed iyo sida dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya ay u hareer taagan yihiin la shaqaynta hay'adaha amniga iyo garab istaaga dawladnimada iyo horumarinteeda intaba waxyaabahaas iyo qodobo kale oo muhiim ah oo dabcan arrimaha siyaasadda amniga dhaqaalaha ayaa la isla soo qaaday waxaan sar rajaynaynaa biidnillaahi tacaala in horumarka iyo dawladnimada Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ka wada shaqayn doonaan dadka reer Koonfur Galbeed iyadoo ay hormuud u tahay dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya aad u mahadsantiin Faysal Maxamed Isaaq telefishinka iyo raadiyaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed aqalka madaxtooyada magaalada Baydhabo